kayn ku taala magaalada Bodrogo Grande ee dalka Boortaqiiska ayaa qabsaday dab aad u baaxad weyn oo khasaaro badan soo gaarsiiyay dadka magaaladaasi degan. wararka ayaa ku soo waramaya in tirada ku dhimatay dabkaasi ay gaarayaan 62 ruux ayadoona ay ku dhaawacmeen tiro lagu qiyaasay 50 ruux. daminta dabkaasi ayaa waxaa si aad ah uga qayb qaadanaya dabdamiska waddankaasi ee Boortaqiiska, waxaana uu sheegay duqa magaalada uu dabka ka kacay in dabka uu yahay dab aad u balaaran oo kooxda dabdamiska kaliya aysan waxba ka qaban karin. sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee Boortaqiiska ayaa booqday magaalada uu dabka ka kacay, waxaana aan si sax loo xaqiijin karin waxyaabaha sababay dabkaasi.